waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. wararka ka imanaya magaalada Wajaale ee ku taala xuduudda Itoobiya iyo Somaliland ayaa sheegaya in halkaasi isgaarsiinta ka go'an tahay ku dhawaad 10 maalmood. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay adeegyada e-bir oo laga isticmaalo magaaladaas iyo waxyaabaha la midka ah ee ku shaqeeya isgaarsiinta. waxa kale oo ka go'ay isu socodka iyo xiriirka ay la lahaayeen Itoobiyada kale waxaana hadda u shaqeeya qadka telefoonka oo ay ka helaan dhanka Somaliland. arrimahaas ayaan ka wareysanay Suldaan Cali Suldaan Axmed Jeex oo ka mid ah dadka deegaanka Wajaale. qadka telefoonka ayuuna ugu waramay Aadan Saalimin. waxa muddo ilaa 9 beri aada go'an gaarsiintii telefoonada ayaa ka go'an Wajaale daanta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waa gartay marka isgaarsiintaasi maxaa loo gooyay saameyn noocays ku yeelatay dadka deegaanka saameyn ballaaran ayay ku yeelatay waxa jirta dalka Itoobiya lacag sabirta ah ee Itoobiya dalka gudihiisa ayay kootarban ku tahay oo maanta Wajaale hadda jijigin la taga soo adeeganaysa ama se Wajaale lala imanayo waa lagaaga qaadaya keelihii lagugu arkaba marka waxa la isticmaalaa maxaan ku raadayay e-bil iyo waxyaalaha yaryar ee noocaas adeega kaasada la yiraahdo kuwaasina markii ay go'een telefoonadii la jaray way raaceen. waa gartay marka dadkii saameyn ballaaran bay ku yeelatay isku socodkii xiriirkii Itoobiya lala lahaanay jadiisu go'an yahay hadda walaalkay oo heran jiifo waxaan kula xiriira ma hayo. marka laga yimaado in lacagihii e-birta ee aad ku dirsan jirteen isgaarsiintaasi ay istaagtay xiriirka kale xagga telefoonada iyo qadadka ma shaqeeyaan. كلمة مجربة أين الجيجة تكتل نقطة جيجة كل كذا تكتل عكس بيرتي كلا صوب حري تاريخي لما سو أمريكا. وقرتي مركب بل أرنتني نرشة ضدك الدجان وجعله دين على الدولة الدجان سامين نوعية كويلتي ما دام إلى طبعا عشان كل واحد حالة ضد أي تاي. سامين بالعرم بكويلتي وحلة الإنسان يعمل شنو وحلة. وجاهي الرائع كان يعمل شنو سامين بالعرم بكويلتي. dhinaca bangiyada hadii aad lacagihii dollarka ay aad la tagtaan oo aad ka sarrafataan oo birta Itoobiya aad ku sarrafataan soo kuma isticmaali kartaan maya bangiyada sidoodaba way u xidhan yihiin wax dollar la yiraahdo dalka Itoobiya lagu sarrifan karaan mada jirada yaa xiray bangiyada goorma la xiray waxa xidhan dawladda dhexe la muddo 3 sanaaba way xidhan yihiin marka bal arintan ma kala hadasheen maamulka Wajaale ee dhinaca dawlad deegaanka iyo madaxda kale ee ka sarreysa maxaase hadii aad la hadasheen jawaabad ka hesheen maamulka magaalada waan la hadalay arrintaasi jawaab buuxda kama bixinin maamulka saraxadii aan la hadalay bangiyada oo kale madaxweynaha dawlad deegaanka ayaan kala hadalay hawshaasi wuxuu yiri anigu dawladda dhexe waan kala hadlay inaanay waxba tarifka dollarka ee kacaya aanay halkaasi waxba ka dhimaynin waan u sheegay wax isbedelo ay keentayna ma jirto buuli laakiin hawshaasi waxa weeyaan buuli dawladda dhexe kan maanta telefoonaduna waa dawladda dhexe oo wasiirka maaliyadda Axmed Shide oo dhawaan yimid maxaan ku raadayay dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inuu Wajaale albaabada u laabayo sidoo noo sheegay marka adinka hadii dhibaatada ugu weyn ay tahay dollarka maxay idin diiday inaad lacagtii aad bir ku sarrafataan dollarka iska xayirtaan oo dhinaca lacagta Itoobiya isticmaashaan maadaama culeysku ugu weyn uu yahay isticmaalka dollarka horta dollar halkan lagu isticmaalaa ma jiro waaniga kula tootoliyo yani Itoobiya gidigeeda wax dollar oo ama wax lagu kala iibsan kara ama aad si toos ah u sarrifan karto iyo isgaarsiintiba way go'an tahay bal ka waran marka dhaqdhaqaaqa xagga ganacsiga maxaa hadda wax lagu kala gataa wax maanta wax lagu kala gataa ma jiraba sidin Somaliland ma haysano kama shaqeynaya halka iyagan Itoobiyana sidaas abu u go'an yahay xoolaha ka soo iibsada lacagtiisa oo kaasha Wajaale lama iman karayo laakiin qofku soo lacag Itoobiya bir ah ma wadan karo oo maadaama gudaha ay si caadi uga shaqeyso maxaa diidaya in sida kale wadankaba ay uga shaqeyso ay deegaankan uga shaqeyso tootali waa una qabatay si khaas ah Wajaale taasi u saaran Itoobiya lacag lama safran karo Itoobiya kalama iman karo waxyaalaha aan ka cabanayno ee cadaadiska haystay ka mid tahay taas hadda marka xalku muxuu yahay maxaa xal idin ah hadii madaxdii aad la hadasheen welina aadan jawaab helinina maxaa marka ay tahay talaabada kale aad isleedahay xaaladda waa lagu furdaamin karaa waxaan hayay dawladda
dowladda dhexe iyo dowladda deegaankaba arrinkani waa arrinka kaa gala fardaha haddii laga guda dameer dawada lama gaari karo war xalku waxa weeyaan ma yeelo wajaale doolarka lagu xalinayaa dadkan cunaqabataynta iyo cadaadiska ha laga saaraan anagu leenahay ganacsiga Itoobiya arrinta uu maareyn kari waaye in wajaale lagu maareeyaana suurto geli mayso 125,000 oo qof baa ku nool arrintaasi dadkii fawda kala iman baan leenahay haddii dowladdu arrintaasi isbedel degdeg ka keeni weydo Suldaan Cali Suldaan Axmed Jeex oo kamid ah dadka deegaanka wajaale oo ay isgaarsiintu ka maqan tahay ayuu kaasi ahaa oo aadan saalimin u waramayay qodobo kale ay inoo soo socdo